بسم الله الرحمن الرحيم. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، وولالكينا أستاذ عبد القادر سيد إبراهيم oo aad ugu barateen inuu idin soo gudbiyo barnaamijkii tarbiyaynta caruurta iyo baridda ducooyinka iyo adkaarta. qaybtani waxaa weeyaan waa qaybtii saddexaad ee barashada ducooyinka iyo adkaarta ee inoo dhaafay nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam. haddaba maanta hadduu ilaahay idmo, mowduucaan qaadan doono waa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah oo ay ugu baahan yihiin ummad badan ay u baahan yihiin. ducada maanta aan soo gudbin doono waa duco muhiim ah oo qayim ah oo u baahan sagiir iyo kabiir, qof weyn iyo qof yarba u baahan yahay. walaalayaal, saa ogsoon tihiin mashaakilka adduunkan uu iska badan yahay. waxaa jirta qofka in oo hurdila-aan ay ku dhacdo habeenkii. waxaa jirta qofka marka uu seexdo in uu arko waxyaalo cabsi ah, riyooyin cabsi ah, ama inuu cabsi uu galo qofka oo hurdadii ka imaan weyso. waxaasoo dhan nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam waa inoo sheegay, wuxuuna inoo dhaafay duco haddii aad akhriisato hurdila-aantaas iyo cabsida iyo riyooyinka xunxudaad arkayso, ilaahay idinkiisa way kaa tagayaan. riyadaas xun insha allahu tacaala way kaa tegaysaa insha allah, mar damba dib kuguma soo laabanayso haddaad laajinto ducada maanta aan ku bari doono biidni illaahi tabaaraka tacaala. waa duco saxiix ah. waxaan soo gudbinayo dhan waa wax duco saxiix ah oo nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam laga wariyey. walaalkayga muslimka ahow, walaashay muslimad ahay, haddaba waxaan kaa codsanayaa inaad si fiican u dhegaysato casharkan oo aad dhegaysiiso wiilashaada, caruurtaadii, gabdhahaagii, saygaaga, walaalahaaga muslimiintana aad sii gaarsiiso. waayo kelimadda sheer la yidhaahdo wax weyn ayay tartaa. waa qofka hadduu uu doonayo inuu ajarkii uu helo uu dadka muslimiinta ah uu sii gaarsiiyo. waayo addaalu cala alkhayri ka faacilih. kelimadaas mar walba waa ku soo celcelinayaa, waayo xabiibkeena muxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa ina yidhi qofka muslimiinta gaarsiiya khayrka wuxuu leeyahay ajir la mid ah midka jeediye ama qofka uu baray. waayo balliquu cannii walow aaya, hal aayad allah ka dhigay ummadda iga gaarsiiya. haddaa hal aayad aad taqaano oo micnaheed si wanaagsan u taqaanid, waa inaad muslimiinta aad sii gaarsiisaa. walaalkayga muslimka ahow, walaashay muslimad ahay, haddaba ma isku aragtaa hurdo la-aan habeenkii ah? ma isku aragtaa cabsi? ma isku aragtaa maxaa la yidhaahdaa riyooyin xunxun? waxaa waajib marka ugu horeyso inaad sunnadii nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam oo inoo dhaafay inaad raacdo. waxaa waajiba marka ugu horeyso intaadan seexanin ka hor waa inaad soo weyse qaadataa. waa tahaarada waa muhiim. qofka muslimka ah waa in uu tahaaro ku seexdaa. habeenkii markaad seexanayso waa inaad weyse qaadataa oo aad akhriisataa mucawadateenkii aayatulkursi. wabacdeen ducadan haddaa hurdi la-aan kugu dhacdo
oo hurdidaad iska weyso waxaad akhrisataa ducadan haddii cabsi aad dareento ama bahale iyo wax ku cabsi geli aad aragtana akhriso ducadan acuudu bikalimaati illaahi attaammaati min ghadabihi wa ciqaabihi wa shari cibaadihi ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون مرسد هذا أنكو عليو أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون الله أكبر ودعاء قيمة بدن شياطين تدد كيدبان شياطين الإنس والجن ياجرة كوم أو إنس نفتر كوذا الشياطين يا كجرة أو دتك حسده أو حاسدين qofka nimcada u ogolayn qofka wanaaga u ogolayn qofka xasdaaya ilaah ayaa laga mangalaa shartooda shayaatiin oo shaytaankii saxda ahaa asigana oo jinka ahaa ilaah laga mangalaa walaalayaal mar waliba aan ku socono xirsi xirka inaad isxijaabto adiga markaa seexanayso markaa guriga ka soo baxayso markaa guriga aad galayso markaa shaqada aadayso hawl kasto wax kasta aad samaynayso duca ayuu u sameeyey nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam haddii suuliga aad galayso ducaa loo sameeyey haddaad ka soo baxayso ducaa loo sameeyey markaa cuntada cunayso ducaa loo sameeyey markaad dherigto ducaa loo sameeyey meeshaa ka cuntaynayso waa la sheegay walaalkay muslimka aho walaashay muslimadahay diinta ilaahay subxaana wa tacaala fudeedu ka dhigay yaanan culays ka dhiganin addiin yusrun walaysa cusra diinta maahan mid culus way fududahay laakiin annaga haddaan culays ka dhigno culays ayay noqonaysaa bashiruu walaa tunafiruu ummadda u bishaareeya ummadda khayrka u sheega ummadda yaan la cabsi gelinin ummadda yaan walwal iyo walbahaar lagu ridin hadda cudurkan socda walaalkay muslimka ahow walaashay muslimad ahay allah subxaanahu wa tacaala wixii kugu dhici lahaa maalintii lagu uumayo la qoray waxaad cuni laheed waxaad cabi laheed waxaad xiran laheed taariikhdaad dhimanayso xilligaad dhimanayso dhulka aad ku dhiman doonto cudur kugu dhici doono hadduusan kugu dhicaynin waxaasoo dhan way qoran yihiin walwal ha isgelinin walbahaarka iyo walwalka waa sun waa cudurka hadda koronaha la sheegaya asigaa ka daran cudurka taacuunka ka daran yahay walwal ha iska gelinin waman yatawakkal cala allah fahuwa xasbuhu ilaahaa kugu filan xasbuna allah wa nicma alwakiil ilaahay talada saarta walwalka iska dhaafa cabsida iska dhaafa ilaahay subxaana wa tacaala aan u laabano waxaanoo dhan waa dunuub oo anaga aan gacanteena ku kasbani way cudurkaa la sheegayana waa ciidan ka mida ciidamada ilaahay subxaana wa tacaala haddii oo lacag laisku furan lahaa aaway maalqabeenadii adduunka aaway nugleeradii aaway hubkii cuslaa aaway الأسلحة الفتاكة الأسلحة النووية أو كوا أو محل هذا إن هدي ودن كان لوريدو كنت هذه تيرد دير أوي هو بياشي أوي بمبانوين كأوي وحي ترايان مله وما يعلم جنود ربك إلا هو عيدنك إلهي سبحانه وتعالى أسيك لي أوغانكرا عبسيد اسكدافا هداد عبسيد درونتو دعوينك أخريسو قرآنك أخريسو إله الله إلهي سبحانه وتعالى ونجعلها cabsidaan hadeertaan oo corona la sheegayo ilaahay wuxuu rabaa adoonadiisa way ka mashquuleen cibaadadiisa ka mashquuleen wuxuu rabaa inay u soo laabtaan oo ilaahay soo xasuustaan dhikriisa soo xasuustaan quraankiisa soo xasuustaan waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma ninkii ka jeesta oo ka leexda indhaha ka dabooshta oo ka sii jeesta ilaahay xuskiisa ذكرجيسا إلهي سبحانه وتعالى وحو قلنا نور العريري وحو كو أبو ريا قلب جيسا فزع وحو كو أبو ريا قلب جيسا هم غم مرق والبهار أي إلهي سبحانه وتعالى قلبي أقول يا وايو الله سبحانه وتعالى إنه ما كان الدون كان
inaan wax cunno oo waxaan cabno aan music aan dhegaysano aan lahwi ku noolaano inooma keenin. allah wuxuu inoo keenay inaan dikrigiisa aan badino. yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira, war ilaahay xusa in badan. ilaah mar walba ku dhahoyo ku aawa ilaahay rasuulkiisa rumeeyow, xusa ilaahay in badan. carabkaa ujeediin haddii uu shib dhaho wuu daalaa carabka, aamusnaantuu ku daalaa, laakiin kama daalo marka uu hadlaayo. dikri ilaahay subxaana wa tacala u badan yahay. war dikri ilaahay badsada, subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar. waa wax fudud waaye. laa xawla walaa quwata ila billaah. badso ilaahay dikriis badso, qur'aanka akhriso. walaalkay muslimo, walaashay muslimad ahay, waxaan idin dardaarmayaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala nagu hago waddadaysa toosan. ilaahay subxaana wa tacaala kuwii xasuusta oo xus allah naga dhigo. haddaba maanta insha allahu tacaala waxaan idinla wadaagay ducadaas oo haddii hurdi la-aan ay kugu dhacdo oo adiga aad cabsi dareento, ilaahay soo xasuuso. acuudu bikalimaati illaahi الtaamaati min غadabihi wa ciqaabihi wa shari cibaadih wa min hamazaati الshayaaiini waan yaxduruun. inay shayaaiinta dhib ay kuu geystaan ilaahay ka magangal. sharta jinniga insiga ilaahay ka magangal. ilaahay caradiisa ka magangal. inuu ilaahay kuu caroodo ma wanaagsano. ilaahay caradiisa halis waaye. ilaahay aan raali gelino. walaalkay muslimkahow, walaashay muslimadda ahay, haddii videon ku soo gaaro sii gaarsii muslimiinta. bar nafsadaada, bar xaaskaaga, bar walaalkaaga, bar ilmahaaga. inta yaryihiin ilmaha la baraa. ilmaha aan tarbiyayno, ducoyn aan ku tarbiyayno. ilmaha yaan hees ku tarbiyaynin, yaan lahwi ku tarbiyaynin. walaalkay muslimka ahow, ducadan waa muhiim. haddaad dareemayso cabsi, ducadaasaa kugu filan akhriso. aniga wax afkayga aan ka watamaan, aniga waxaan soo alifti ma ahan. suubanaha sala allahu calayhi wasalam ayaa inoogu tagay oo inoo sheegay aan dhaqan gelino. allaahumma hal ballaqt, allaahumma fashhad. wajazaakum allahu khayr. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. haddii aad doonaysid inaad la soo degto videoga aad ku ceshceshato casharka, booqo youtube-ka, linkiisa meesha idin soo saari doonaa si aad ula soo degtaan. jazaakum allah khayr. waa ustaad cabdulqaadir siid ibraahim, markaz yuusuf channel, qanaat markaz yuusuf.